madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cabdiqaasim Salaad Xasan ayaa sheegay in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ka codsaday in laga gudbo khilaafka kala dhaxeeya ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble. Madaxweynaha waan la hadlay oo telefoon baan kula hadlay waxaana ka codsaday in la joojiyo khilaafaadka. khilaaf looma baahna hadda sababtoo ah doorasho la rabaa in la galo iyadoo khilaaf jirin in la galaan rajayna ayuu yiri madaxweynihii hore ee dalka. Cabdiqaasim Salaad Xasan ayaa waxa uu sheegay inuu rajaynayo in khilaafku joogsado dadkuna doorasho xalaal ah ay galaan oo xaq ah cidii ay dan u arkaan ay doortaan. Mar uu ka hadlayay sida khilaafka taagan looga gudbi karo ayaa waxa uu ku jawaabay waxa looga gudbi karaa in khilaafaadka la iska daayo sida sharciga ama dastuurka uu qabana in doorasho la galo. Cabdiqaasim Salaad Xasan ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay inaanay la kala safan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha oo ay ka shaqeeyaan sidii dalka ah ay uga qabsoomi lahayd doorasho daahfuran. Waxaan ugu baaqayaa shacabka inaanay cidna la safanin laga codsado cidii is haysata iyadoo heshiis la yahay oo madaxda qaranka iyo dadkuba ay heshiis yihiin in doorasho xalaal la galo ayuu yiri Cabdiqaasim Salaad Xasan madaxweynihii hore ee Soomaaliya. Cabdiqaasim Salaad ayaa intaa ku daray sidaan horay uga barinay Ilaahay haddana waxaan uga bariyaa ummadda Soomaaliyeed inuu ka qaado culays kasto haysta muddada badan soo haystay in uu ka dulqaadan Ilaahay uga rajeynaya waan u duceynayaa ayuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cabdiqaasim Salaad Xasan oo sheegay inuu marar badan la xiriiray madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka codsaday in la joojiyo khilaafka asoo kala dhaxgalay isaga iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble. Dhinaca kale ku xigeenka xogayaha guud ee qaramada midoobay Aamina Jean Maxamed oo shalay booqasho ku timid magaalada Muqdisho ayaa qoraal ay soo saartay uga hadashay kiiska Ikraan Tahliil Faarax oo ahayd gabar lagu laayahay gacanta hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee Soomaaliya ee NISA. Aamina ayaa taageertay in kiiska gabadhaasi la mariyo cadaaladda taasi oo ah mowqif raacsan kan ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble qoyska gabadha iyo inta badan shacabka Soomaaliyeed. Sareynta sharciga iyo cadaalad helistu waa muhiim in haweenka laga ilaaliyo rabshadaha waana wax uu xaq u leeyihiin dhammaan haweenka ayay tiri. ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa shalay uga mahad celiyay qaramada midoobay inay taageertay mowqifkiisa ah in qoyska Ikraan Tahliil Faarax ay helaan cadaalad. qoraalka ka soo baxay xafiiska ayaa lagu yiri injineer Maxamed Xuseen Rooble ayaa sheegay in ay mas'uuliyad ka saaran tahay sidii ay cadaalad ku heli lahaayeen qoyska Ikraan Tahliil Faarax isagoo xusay in aysan haboonayn in arrintaasi la siyaasadeeyo. wadahadaladii Farmaajo iyo Rooble ayaa burburay kadib markii Farmaajo uu dalbaday in qoyska Ikraan Tahliil Faarax la siiyo diyo kiiskana halkaas lagu xiro halka Rooble uu sheegay in ay maxkamadda ciidamada ay baarayso kiiskan isla markaana cadaalad la marsiinayo. saaxiibada beesha caalamka ee Soomaaliya ayaa horay u sheegay inay ka walaacsan yihiin muranka ku geedaaman waayitaanka Marwo Ikraan Tahliil Faarax oo uu abuurayo xiisad siyaasadeed oo saameyn ku yeelan karta habsami u socodka shaqada dowladda federaalka Soomaaliya carqaladeyn karta hanaanka doorashooyinka dalka. waxaan sii wadaynaa xiriirka aan la yeelano madaxda Soomaaliyeed oo badan si aan uga boorino in si degdeg ah loo xalliyo khilaafkan oo ay ku jirto baaritaan lagu kalsoonaan karo oo ku saabsan waayitaanka Ikraan iyo dhamaystirka geedi socodka doorashooyinka iyada oo aan dib u dhac kale dhicin ayaa lagu yiri qoraalkii beesha caalamku shalay soo saartay.